xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray warqad maanta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha. Warqadaasi oo lagu sheegay qorshaha xulista baarlamaanka labaad iyo doorashooyinka madaxweynaha Jubbaland 2019. Warqadan oo u muuqatay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku wiiqdo rabitaanka shacabka Jubbaland isla markaana afduubato awood qaybsiga. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray kaniiniga hurdada madaxda filla Soomaaliya oo markasta oo munaasabad ay ka jirto Kismaayo laga soo saari jiray ayaa caawa milligaraam culus looga qoray balse markaan kaniini dhacay ayay qoreen. Warqad dastuurka iyo shuruucda dalka aan meelna ku cuskanayn oo wasaaraddan soo saarto waayadan dambe ma cusbeen. Waxay tani muujinaysaa tabardarri iyo foodada dowladnimadii dalku ay cagta si saayid ah u saartay. Waayadan dambe waxaa xukuumadda looga bartay inay golaha wasiirada u dirto maamul goboleedyada iyadoo xukuumaddu ku bixinayso dhaqaale ama shacabka ay ku muquuninayso madaxweyne aysan rabin. Cabdiraxiin Cusmaan Macalin Maxamuud Gaabshe, telefishinka xisbiga UBD, Muqdisho.